dacwad muddo dheer la sugayay oo ku saabsan dilkii madaxweynaha hore ee Burkina Faso Thomas Sankara ayaa ka bilaabatay magaalada caasimadda u ah waddankaas ee Ouagadougou. Sanadii 1987 ayaa Sankara lagu dilay afkambi ka dhacay dalkaas, wixii markaa ka dambeeyeyna la isma weydiin cidda ka dambeysay dilkiisa ilaa laga soo gaaray 2014 oo isbedel weyn dhacay. ninkaas waxaa lagu yaqaanay inuu iska ilaalin jiray ku tagrifalka hantida dowladda, noloshiisuna waxay ahayd mid aan ka duwaneyn tan dadka caadiga ah ee muwaadiniinta ah. laba ka mid ah raggii walaalihiis ahaa oo kale ah Paul iyo Valentin Sankara ayaa ka sheekeeyey xasuusta ay ka haystaan walaalkood ka hor intaan la dilin. waxay sheegeen in tan iyo markii walaalkood dowladdiisa la afgambiyey ay ku noolaayeen xaalad isqarin ah iyagoo ku baaqay amnigooda. dad badan waxaa soo jeedatay sheekada uu BBC-da la wadaagay Thomas Sankara walaalkiis Valentin Sankara. waxa uu ka hadlay sida Thomas uu ugu dabeecad wanaa madaxda kale badankood, gaar ahaan qaaradda Afrika, kuwaas oo laga yaabo inay ka faa'iidaystaan xilka ay hayaan. inta badan madaxweynaha walaalihiis iyo xubnaha qoyskiisa ma aysan tegi jirin xafiiska madaxtooyada sababtoo ah isagu ma uusan fasixi jirin. maalintii ugu horeysay aan lugta saaro madaxtooyada, aabbe ayaa waxay uga dirsaday. waxa ay ahayd xilli duhurnimo ah. aad baan u faraxsanaa maalintaas. waxaa niyadda iska dhahayay cajiib, maanta runtii waxaad raashin ka cuni doontaa miiska weyn. laakiin waxaa lama filaan igu noqotay markii aan imid halkii aan raashin madaxtooyada ka sugayey. waxaa la soo hordhigay saxan cambuulo ah. waa cambuulada wadooyinka iyo meel walba lagu iibiyo oo laga heli karo lacag yar oo $1 oo kale ah. cambuuladii ayaan eegay, markaas ayaan niyadda iska dhahay tani waa nasiib darro. laakiin si aanan u niyad jabin, dhowr jeer ayaan cantuugay. markaan ka dulkacay ayay dhaheen, maxaa kuu dhacay, maxaad u cuni weyday raashinka? markaas ayaan ugu jawaabay, maya dhib ma laha, halkan intaanan imaanin baan wax soo cunay, ayuu yidhi Valentin. sidoo kale waxaa ugu markhaati kacay walaalkiis Paul Sankara oo isaguna sheegay in Thomas iyo qoyskiisu mar walba u caddayn jireen si uusan raalli uga ahayn inuu u fasaxo hantida shacabka. waxa uu ahaa nin adag, walaalkeenna naga weyn oo waxyaabo badan aan ka filin, sababtoo ah markuu ka yimaado safar dibadda ah waxaan rajaynaa inuu kuu keeno hadiyad qaali ah ama labis dhar ah balse markii uu xukunka qabsaday wuxuu noo caddeeyey inuu meeshaas u joogo shacabka reer Burkina Faso oo uusan u joogin walaalihiis iyo wixii la mid ah, ayuu yidhi Paul Sankara. ilaa markii la afkambiyey Sankara, Burkina Faso waxaa madaxweyne ka ahaa Blaise Compaoré, laakiin kacdoon ballaaran oo dhacay sanadii 2014 ayaa ku khasbay inuu ka dego xilka. waxaa durbadiiba bilowday in la dhiso xasuustii Thomas Sankara oo dib loo soo nooleeyey. walaalihiis waxay sheegeen inay mar walba xasuustaan walaalkood oo dhahaya, xitaa haddii aniga la ii dilo waxaa soo bixi doona 1000 Sankara oo kale. aad baad u mahadsantihiin.